Murtida Manta. Ninkii maalintii shaqaysta habeenkii buu ismahdiyaa. kali iyo koox midna noloshu uma hagaagto haddii uusan helin shaqo u miraysa iyo dhaqdhaqaaq joogto ah. qofkuna waxa uu u huraa hawl jirkiisa ka soo go'day oo uu ugu harjadaa taagtiisa beerashada, baayac mushtariga ama farsamooyinka kale inuu damaano geliyo gasiinkiisa oo xaaskiisuna ku noolaado nolol wanaagsan. ninkii maalintii shaqaysta habeenkii buu ismahdiyaa waxay tahay qofka garta hawsha la gudboon oo maalintii quriskiisa u soo dhidida ayaa habeenkii laabdeganaansho ku barya, xooggiisana mahdiya, naftiisuna rajo weyni gashaa ee ay ka horlaacaan maalmo iftiimahaya. shaqada oo qofka sharaf u ah una horseeda liibaan iyo aayatiin barwaaqo waxa ay sharaf u noqon kartaa oo u ansixi kartaa ismahdintiisu qofka marka ay shaqadiisu noqoto mid qawaaniintu ogoshahay, asagana aan ciribhumo u keenaynin, dadka kaleetana gaarsiinaynin dhibaatooyin, dalka iyo ummadaha dantiisana iyo dhismaha laga doonayana ka qayb qaadanaysa. murtideenna la leeyahay ninkii maalintii shaqaysta habeenkii buu ismahdiyaa waxa ay dacal naga tusaysaa in qofku mar hadduu sidaa u shaqaysanayo la dhowro sharafkiisa oo xaqiisa la ilaaliyo ee aan la faragelinin. waase goorma marka uu qofku middaa ayadaa heli karo? jawaabtu waxay tahay waxa weeye marka tabiciisu ku imanayo wadda xalaala oo uu ku shaqaysanayo si qawaaniintu ogoshahay. marse haddii ay shaqadiisu cuskan tahay waxyaalo danta guud waxyeelaynaya ee waxyaalihii looga baahnaa inuu dalka u qabto ama uu naftiisa ku daryeelo uusan ku hanuunsanayn ee siyaalo kale oo qallooc ah oo ay dhagar iyo waxyaalo la mid ihi ku dheehan yihiin oo lagu dhibahayo danta guud, taas waxaa lagama maarmaan noqonaysa in markaa la farageliyo qofka oo la tusaaleeyo xad uusan dhaafi karin oo uu tabiciisana ku oofsan karo, dadka kaleetana danihiisa uusan ku waxyeelayn karin. murtideenna ninkii maalintii shaqaystaa habeenkii buu ismahdiyaa haddii aanu fiirino waxay meelo badan naga tusaysaa qofka shaqaystaa sharafkiisu inuu ku jiraa hadba shaqada uu qabanayo, dariiqii uu ku fuliyo iyo sidii uu u qabto. haddii uu si daacadnimo ah uu u qabto naftiisana uu ka dadaalo inuusan waxyeelayn dadka kaleeto waxyaalaha danihiisu ay ku jiraan ee uu waxtar ku ahaado hawsha uu qabanayo, in markaa sharaf iyo qiimo weyn uu leeyahay lana nabadgeliyo xuquuqdiisa. marse haddii uu noqdo qof dalka iyo dadkaba dhibaya oo tabiciisa ka gaar yeelaya ummadda kale danaheeda in la iska horeeyaa oo loo yeelaa xad uusan dhaafi karin,